boqorada Ingiriiska Queen Elizabeth ayaa maanta warqadihii aqoonsiga guddoonsisay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Britain Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe. Danjire Sambaloolshe ayaa noqonaya diblomaasiga ugu horeeyay ee Soomaaliya ay ku yeelato Britain muddo 23 sano kadib. Haddaba wariyaheena Sahra Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka ku wareysatay danjire Sambaloolshe waxayna ugu horeyn weydiisay inuu faahfaahiyo munaasabadii uu ku gudbiyay warqadihiisa aqoonsiga. runtii maanta waxaan u gudbiyey si rasmi ah warqadihii danjirinimo ee aqoonsiga ahay iyo dambaal aan ugu waday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud boqorada Ingiriiska Queen Elizabeth II personally aniga shakhsiyan waxay ahayd maalin iyo diilala maalin weyn oo farxadeed bacdama 20 sano iyo ka badanba safaarad Soomaaliyeed iyo safiir Soomaaliyeed baysan halkan joogin iyaduna runtii si weyn ay ii soo dhaweysay xafladu waxay xalfad si fiican loo soo abaabulay oo gaar farasiyo iyo ciidamada boqortooyada iyo maxaan ku dhahaa protocol arrangements aad u fiican oo aad u faahfaahsan loo sameeyay Lancaster House ayaa laga qaaday waxaana la geeyay aqalka boqortooyada dib waxaan la kulmay boqoradii waxaan weydiiyay ama aan ku wareejiyay warqadii aqoonsiga madaxweynaha ka waday iyo dambaalkii madaxweynaha aad ay soo dhaweysay muddo 20 daqiiqo ka badan ayaan sheekaysanayno kaftamaynay dabcan waxay tii waa compensate garanaya ama waqtiyadii la dhaafay aan soo kabaya which oo itusinaysa runtii inay xiise kaas ay nasiinaysay ama yani meesheena ay diblomaasiyadda ay nasiinaysay si wanaagsan ay ku dhamaatay dabeedna dib ayaa la soo galbiyay oo meeshii laga qaaday ayaa lagu soo celiyay haddana xafladii way dhamaatay jawi wanaagsan ay ku dhacday haddana hawshaas way soo gabagabowday waa safir marka muddadaasi 20 daqiiqo ah waxyaabihii aad ka wada hadasheen boqorada maxaad ka xusi kartaa ee aad noo sheegi kartaa inta badan marka boqorada ay safiirada ay qaabilayso waa iska personal oo ama arrimahaaga khaaska ama qoyskaaga ay wax ka weydiinaysaa laakiin hadda muddo 10 daqiiqo ka badan runtii waxaan ka sheekeynaynay wadanka duruufaha uu soo maray iyo hadda meeshay wax marayaan doorka dawladda Ingiriiska ay ku leedahay sida oo reer galbeedka maxaan ku dhahaa ama ay u dayaceen mar hore ama hadda ay weli uga gaabanayaan ama iyadoo ay ula socoto waxaan u sheegay in maxaan ku dhahaa wadanku sidii hore uu ka soo saaynayo duruufo adag iyo challenges fara badan ay jiraan laakiin maxaan ku dhahaa dawladnimadayna ay soo kabsanayso waxay kaloo runtii waxay iga weydiisay dadka Soomaalida halkan degan waxay ii sheegtay marka hore in ay duruufahoodu adkaa aysan dadka dhexgelin jiray laakiin hadda ay sidii loo sheegay ama ay ka warhelayso ay dadka Soomaaliyeed ay dareemayaan inay qayb ka yihiin bulshada Ingiriiska waxaan kaloo u sheegay in wadanka ay dad fara badan oo halkan jooga ay dib ugu noqdeen wadankeeni runtii aqoontooda iyo yani maxaan ku dhahaa waayo aragnimadooda wadanka uu ka faa'iideystana wasiiro fara badan oo halkan ka tagay dawladda ay ku jiraan xildhibaanada ay kamid yihiin arrinkaas ay ku faraxday tiri labada dawladood taas isku soo dhaweynaysa waxay kale aad ula socotaa waxay kale ii sheegtay in mar walba oo Soomaaliya xaaladeeda loo jeesto oo adduun crisis ka xoog badan sida Syria Masar iyo Middle East ay ka dhacaan oo runtii ay taasu Soomaaliya ma nasiib badan tahay mise aan nasiib daran tahay su'aalaha ay weydiisay oo aan iri in general waxaan isku tixgelinaynaa inaan nasiib badan nahay adigu qof wax muuqtay runtii si dhow ula socota xaaladda wadanka marka laga bilaabo maanta waxa tahay wakiilka Soomaaliya u jooga dalka Britain hawlaha ku yaala ama shaqooyinka aad durbabad jeceshay inaad guda gasho ee ku liis karaysan maxaa kamid ah hawlaha waxa koow ah dabcan dib u furista safaaradda soo magacaabistay ama xulashadii shaqaalihii soo celintii adeegyadii dabcan waa la socotaa Ingiriisku si xoog badan in wadanka hawliis ugu lug leeyahay sidii de kaalmo macna leh oo waxtar leh halkan looga abaabuli lahaa oo hay'adaha kala duwan oo Ingiriiska haday noqotay jaamacadaha meediyaha ciidamada amniga ganacsiga iyo maalgashiga jaamacadaha maxaan ku dhahaa hay'adaha nabadgelyada wax kasta oo suurtagal ah oo wadankii halkan looga riixi karo in looga riixo adeegyadii dadka Soomaaliyeed inkastoo inta badan ay halkan haystaan baasaboorro ama dhalasho Ingiriis ah wixii aan haysan wixii adeeg loo qaban karo loo qabto dadka Soomaaliyeed oo halkan degan dalkii dib loogu abaabulo sidii ay gacan uga geysan lahayd dib u dhiska iyo howlaha nabadgelyada iyo dib ku soo kabashada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada guud ahaan ban ayagana lagu dartageliyo ayaga la abaabulo la isku dabarido laakiin muhiimadu waxay tahay in safaaradii la furo dabcan shaqaalaheedii iyo dadkii ka howlgeli lahaayna la isku dabarido oo la soo aruuriyo
waan gartay mudane safiir adiga ka hor intaan bishii September lagu soo magacaabin safaaradda Soomaaliya ee dalka Britain ma hore ayaad uga mid ahayd Soomaalida degan dalka Britain mise wadan kale ayaa saldhigaagu ahaa maya kama aanan mid ahayn weligiina aniga horta shakhsiyad oo emergency sheema qaadan dadka dibadda uga soo baxay wadankana ma ahayn oo inta badan wadanka ayaan joogay kaliya intaanan imaanin ama aan la soo magacaabin halkan waxaan joogay Oxford muddo 1 sano ah oo aan course ku sameynayay marka joogitaankayga ugu badnaa oo Ingiriiska aan soo joogo marka kasakow xilliyo kooban oo aan official visit ama booqasho rasmi aan ku imaaday marka laga reebo horta halkaas oo aan ku soo joogay ayay laakiin intii ka horeysay siyaasadda Soomaaliya waan ku jiray mar wasiir aan soo ahaa muddo dheerna waxaan la soo shaqeynayay UN-ka waan gartay ugu dambeyn waxa jira dad caadi ah ama ganacsata ama ardaya oo baasaboorka Soomaaliya haysta dalka Britain ma laga ogol yahay in fiisa la soo siin karo oo dadkaasi iman karaan hawlahooda markuu dhamaadaan ay iska noqon karaan horta waad la socotaa joogitaan safaaradeed Britain gudaha Soomaaliya kuma lahayn weegii hore ayay si official oo rasmi ah safaaradoodii uga howlgashay magaalada Muqdisho inaguna muddo dheer waan maqnaynay sida la socoto hadda baan boorka ka jafayna doodoobayna baasaboorka Soomaaliga runtii waa very sad cilada ay dawladaha qarbiga ama reer galbeedka ka sheegaan waxaan isku dayaynaa mar dhow in la saxo maxaa kamid ah ceebahaasi ka gacan sii karo in la ka saxana waan ka codsan Ingiriiska oo iyaguna waxay naga ballan qaadeen ciladaha ay ka tumaan in laga saxo oo la xiriir dhinaca amaanka kaasi wuxuu ahaa danjire Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe oo warramay waryaheena Sahar Ciidle Nuur